markaan arka wajiyadiina oo aan dhageysto hadalkiina fikirkiinana aan qiimeeyo walwalka aan Soomaaliya u qabana uu iga yaraada rajada aan galmudug ka qabana way kordhaysaa sababtoo ah wiilashii gabdhaha meeshan ka hadlay iyo fikirkooda iyo hadafkooda waxaan runtii aaminsanahay Soomaaliya rajo weyn inay leedahay marka horta aniga lafteyda iyo halkan dhiirigelin ii ahayd casuumadda waa ku mahadsantihiin xafladii xalay aad abaabusheen oo qof walba oo daawaday uu runtii aqbali waayay inay dhuuso mareeb tahayna waa ku mahadsanteen magaaladiinana waa u hiiliseen ra'iisul wasaarihiinana waa soo dhaweyseen waxaan ku bilaabaa marka hore wiilkii yiri maadaama aad reer galmudug tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad noo tiraahdid abaraawe haruubka u buuxe waa idin iri xalay waa idin iri 26 Juun ayaanay idinka fakanin mashruuca la yiraahdo dib u dhiska galmudug midaysan tayaysan toosan hufan waa xuquuqdii hadda aad ka hadlayseen waa mustaqbalkii hadda aad ka hadlayseen maanta waxay soo gaartay meeshii ay ugu rajada fiicneed oo kulligiin aqrisantihiin looma fiirin karo gobolkee ka soo jeedaa ama degmadee ka soo jeedaa yaa mucaarada yaa muxaafada kulligeen waxaan rabnaa hadda meesha hadda ay taagan tahay hadday gadaal uga noqoto mas'uuliyadna wada saaran waayo xalayto waxaan shacabka Soomaaliyeed hortooda ka sheegay in gogoshi halkan la dhigi doono waxaa kaloo aan shacabka Soomaaliyeed hortooda ka sheegay in ciidamada hay'adaha amniga ay halkan ka howl galaan sida ugu dhaqsaha badan waxaan iri ma aha bisha soo socota ma aha usbuuca soo socota waa inay bari noqotaa maalinta bari ah waxaa dhuusa mareeb imaan doona taliyaha ciidanka xoogga taliyaha ciidanka booliiska taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed tan kale waxaa runtii muuqata meelihii aan ku soo wareegay oo dhan galmudug yacni yididiilo Soomaaliyeed ayaa ka muuqata rajo Soomaaliyeed aa muuqata hami Soomaaliyeed aa muuqda waana run dalkani wuxuu u baahan yahay dad ka fikira mustaqbalka fog sida kuwii xorriyadda soo dhaliyay wuxuu u baahan yahay dhalinyaro sidiina oo kala ah runtii hal shay oo idinka khaldan uma jeedo aniga aqligi waa leedihiin niyadii waa haysaan maskaxdii waa haysaan waxa u baahan tihiin inay sabaabushiin degmooyinka idinku dhow dhalinyarada ku joogtaad ku xirantaan kuwa ka sii fogaad ku xirantaan si marka ugu dambaysa aad u noqotaan dhalinyaro midaysan waddanko dhan oo awoodda waddanka si midaysan oo cilmiyeysan ula wareeg 2 sano iyo xoogaa ka hor markaan ra'iisul wasaaraha noqday ma jirin fikirkan ah dhalinyaradan sidaan u soo jeeda idinka aan ka baqnaa hadda sababtoo go'aanka markaan gaarayno waxaan isleenahay shacabka Soomaaliyeed maxay dhihi doonaan waxaa soo dhawaanaysa awoodii inaad la wareegtaan waqtiga qaadanaysa laakiin sida gabadhaanu sheegtay waa muhiim idinku hadda inaad ku dhawaataan si kuwa idinka dambeeya ama dhalinyarada idinku xigta 100% awoodii ula wareegaan fursad weyn aan dalka ka muuqata annaga marka inteena halkan fadhido isugu nimid maadaama dadkii reer galmudug aan niyadooda soo celinay oo qof walba hadda indhihiisu ay soo fiirinayaan magaaladan dhuusa mareeb gogosha la dhigay qofka iskale hadduu ka shaqayn waayo inay mira dhasho qofka gogosha iskale ha ku ceeboobay ma aha marka yaa madax ah yaa xildhibaan ah yaa culimo ah gogoshii reer galmudug waxaa loo keenay reer dhuusa mareebeed haddii gogoshan halkan taalla marka aad ka mira dhalin weysaan xisaabtaas way isku xiran tahay meesha ay ka khaldanto arrinka labaad aan rabo inaan idin sheego waxay tahay dhalinyaro Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed shacab Soomaaliyeed oo galmudug kamida oo waxaa jira mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay gogosha la idin keenay sida aad u maareysaan waa inaad ka fikirtaan marka dadka Soomaaliyeed oo walaalihiin ah oo qaraabadiin ah
oo deriskiina oo isku gobol tihiin oo isku dawlad gobol tihiin oo mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay idinku sidaa u dhaqantaan waa inaa intaa ka fikirtaan aad tiraahdaan waa inaan macnaha annagu aan u dhaqmayno waa inuu xambaarsanaada macno ka weyn go'aanka aan gaarno wuxuu saameynayaa wiil ama gabar Soomaaliyeed oo meel aan meeshaan ahayn degan waxaan jeclaan lahaa marka idinka dhalinyaro u ah dalka idinka magaalada iyo gobolka u ah idinka aqoonta u leh laga bilaabo bari markay taliyaasha ciidamadu yimaadaan iyo markaan isugu keenno adduunyada iyo dadka ka kala socda gobolada galmudug oo dhan idinka la idinka rabaa in indhihiinu ay soo jeedaan oo mashruucan aad ka mari dhalisaan intaas ka sokow waxyaabaha aad sheegteen oo dhan waa dhab waddankeenu wuxuu ka soo kabsanayaa ku dhowaad 30 sano oo dhibaatooyin badan la soo maray laakiin hadda meel fiican aan joognaa sidaad idinkuba sheegteen oo dhaqaalaheena dib u habeyn lagu sameeyay oo kor u kacayo oo musuqmaasuqu uu yaraanayo oo bangiyada la dhisaayo hay'adaha adduunka dhaqaalaha ay nagu soo xirmayaan oo aan qarka u saarannahay in ka yar 6 bilood in deynta qaybteeda ugu horeysana la ka cafiyo macnaheedu ay tahay in billions of dollars ay dalkan imaan doonaan khilaaf waa inaan dhinac iska dhignaa marka dan gaar ah waa inaan dhinac iska dhignaa dhaqankii hore oo ahaa in dalka la xumeeyo oo qofka waddankiisa uu ceebka ka sheego in qabyaalad lagu shaqeeyo in dan gaar ah laga shaqeeyo waa in la bedelaa dhaqan kale lagu bedelaa oo ah waa in aan ka shaqeynaa dawladnimo adeeg siisa ummadda Soomaaliyeed oo iskuulo lacag la'aan bixisa oo isbitaalo lacag la'aan bixisa oo caafimaad siisa oo dadku ay shaqo ka heli karaan oo bangiyo dadka lacag amaahin karta la helo nidaam dawladeed oo shaqeynaya in la dhiso waayo oo qofka Soomaaliyeed uu jeebkiisa ka dareemo uu amnigiisa ka dareemo oo mustaqbalku ka dareemo waxaana saas looga shaqeyn karaa in la helo dhalinyaro idinkoo kala ah oo dawladda garab u noqoto khaladka ka ilaalisa la xisaabtanta haddii marka dhaqaalahana dib u habeyn lagu sameeyo amniga iyo ciidankana dib loo habeeyo adeegyana la bixiyo markii dhaqaaluhu ay soo bataanba waxaa imaanaya fikirka ah maxaa haray waa in la helaa siyaasad loo dhan yahay oo shaqeynaysa dastuur aan wada fahamsanahay doorashooyin mustaqbalka idinku codka ah bixisaan awood qaybsi aan shaki dadka kala gelin laakiin isku soo dhaweysan madaxnimo la doortay oo aan ahayn waa inaan ahaanaa qabiil hebel ama qabiil hebel laakiin qofka Soomaaliyeed uu qarankiisa u adeegayo meesha hadda aan joogno waa bilow aas-aas ah laakiin falaartu ay dhinaca saxda u socoto meeshaas marka inteena hadda joogtana waa inaan ku far adeegnaa intiina dhalinyarada oo mustaqbalka la wareegi lahaydna waa inaan ku far adeegtaan oo hore u sii wadnaa qof walbo Soomaaliyeed oo daneynaya inuu kursi qabsadana mustaqbalka xataa hadduu hadda mucaarad yahay waa inuu ka fikiraa meesha aad bari imaanaysid inay ku wanaagsan tahay way fiican tahay in la wada shaqeeyo marka waa muhiim midnimo iyo wanaag aan idin rajeynayo reer galmudug waan idinku soo noqon doonaa insha Allah